waxay aragtay naagtii warqado jeebkeeda kasoo saartay oo markii warqadihii jeebkeeda kasoo saartay meydkii kusii dhex wada warqadihii oo meydkii dhex gelinaysa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى أصحاب تقاليد من كستود أدون كشوفتان قصة دينا مانتا waxay ka dhacday dalka Sacuudiga gobol kamida oo lagu magacaabo Koreyaad. waxaa jiray nin Turkiya oo halkaa degan oo ka shaqaysan jiray salon ku haystay waxaa jiray family uu ka karaystay guri oo maaragtay meesha gurigu degan yahay family uu ka karaystay Sacuudiyiina ay guri ka karaystay markuu family Sacuudiyiinta guri ka karaystay ay maalmaha kamida sidii habeen uge jarkoogi markuu kiraday uge isli ayaa waxa ka furtay hooyadii gurigaas oo ka furtay markii ka furtay albaabkii ay ku tiri soo soco ay ka diiday laakiin ku adkaysay marka isna xisili maadaama maaragtay wiilasheedii iyo odaygeeba joogo iska soco uu socday gurigii buu galay. gurigii markuu galay ayaa waxay u keentay kafeega markuu keentay ayaa waxa ku qubtay kafeega ku qubtay ama gahwihii ayaa ku daatay. markuu ku daatay ay ku tiri jacket keen ana ku maydhay oo macleesh gaar noqo jacket idib ana ku soo maydhay uu ka diiday. wuxuu ku yiri maadaama aniga family-gayga joogin kaliya ku nool halkan oo niska buleeyahay dhibiga ma haysa caadi weeyaan. laakiin iyadoo ka diiday markaa isna u dhiibay. markuu u dhiibay ayaa waxa dhacday maalin dambe inuu jacketkiisa soo doonto. jacketkiisa markuu soo doontay ayaa waxa uu qaatay jacketkiisa markuu qaatay haddana wuxuu arkay jacketkii inaanu lahayn. maalin dambe soo noqday wuxuu ku yidhi anigu jacketka idiga dhigtay malihi ayuu ku yidhi. markuu ku yidhi malihi ay ku tiri aniga ninkayguna jacket ma xidho odayguna jacket ma xidho aniga ninkaygu jacket ma xidho ciyaalkayguna jacket ma xidhaan iyaalahan lahadana lahayn adigu kan badan ii dhigtay. marka wiilkii uu yaabay iskaga dhaqaaqay. markuu iskaga dhaqaaqay ayuu u yaaban yahay isagu way jacketku wuxuu yidhi jacketkayga kala weeyaan wax yar bay ku kala duwan yihiin isku markad maaha laakiin wax yar bay ku kala duwan yihiin buuli jacketyadu okayga lagama garto wax yar mooyaane waanu cusub yahay buuli jacketka lama xiro waa jacket cusub. taasan ka siiyay buuli inay siiyaan jacket cusub oo kay yahay. waxaan sidii malaha family-gani wad aragto inaan jacket xidhana maladay wax ka siiyay ayaa kadib wiilkii si xun ayuu xanuustay. markuu wiilkii si xun u xanuustay ayuu xisdahay family-gaaga u tag si maaragtay hadda dhimatid family-gaaga dhimatid xaaladiisu markay adkaatay ee family-giisa u tagay. family-giisa markuu u tagay ayaa waxa dhacday inay maaragtay xaaskiisii iyo heshiin waayaan oo maaragtay xaaskiisii isdagaalaan. xaaskiisii ciyaalkeedii iyo ay qaadatay guriga family-geega ay ku noqotay. markii uga tagtay guriga family-geega tagtay isna wuxuu u tagay dhakhtaro iyo sheekhi ayuu tagay. sheekh ayaa markii dambe ku yidhi goormay xaaladana kugu dhacday goorma kugu horeysay. walaa waxaan xasuustaa buu yidhi maalin reerkan guriga kaga jiro family-gan guriga kaga jiro aan lacagtoodii kirada u geynayay sidii aan soo sheegay oo maaragtay gahwe igu qubtay. markuu igu qubtay saas sheekadii sida aan ku sheegay ayaan xasuustaa buu yidhi inuu xanuunkan ay bilaabay waqtigaas. markaasuu yidhi waxaan ka yaabay kale buu yidhi jacket aanan lahayn in la siiyey. markaa sheekh wuxuu ku yidhi haddii jacketkii lagaa bedeshay markuu u sheegay jacketkii inaanu jacketka siin wuxuu ku yidhi haddii saas dhacday waa lagu sixiray naagtu waa saaxirad. wuxuu ku yidhi maalina hooyada iyo ma ku weydiisay adiga wax ku khuseeya ها بيري بيل كهر مركز ساس دعيسي أيا وحي ويدسي مجا هويدي يقتري
guriga waa inaad ku qorteed warqada ijaarka, waa inaad magaca hooyada ku qornaado iyo magaca aabahaaba. wani markii iigu horeysay sheekadaas aan arko ayuu ku yidhi markaa wuxuu ku yidhi guri maaragtay inaad ku koreysato maaragtay warqad inuu magaca hooyada looma baahna, magacaaga iyo magaca aabaha waxaan ahayn oo dhaafsiisan looma baahne. naagtu saaxirad bay ahayd maadaama hooyada ku weydiisay jaakeedkiina kaa bedelatay, waa naag saaxirad wiili waana lagu sixray. waxaad samaysaa wiili wadankii u noqo, waa inaad Sacuudiga tagtid, naagtan waa inaad ashkatayso, dowladda ka ashkatayso si maaragtay wiili naagta loo soo qabto oo sixirka ku haya lagaaga furo. wiilkii wuu baxay, wuu soo laabtay Sacuudiga, wuu yimiday Sacuudiga. markuu yimiday wuu ashkateeyey. markaa waxaa jirtay qolo hayada oo maaragtay markaas xoog waxyaalaha ula dagaalami jirtay ayaa joogtay, iyo waxyaalo badan oo kaleba ka shaqeyn jirtay ayaa joogtay. qofkii garanaya. marka waxaa dhacday inuu la yiraahdo waxaan u baahanaa cadayn inaan naagta dabagal ku sameyno oo maaragtay aan soo ogaano. okay buu yidhi, way dabagal bay ku sameeyeen, gabdhaa loo diray. waxaa la ogaaday naagtan inay maaragtay saaxiro tahay oo maaragtay dumarka iyo dadka magaalada oo dhanba ay ku tiraahdo cashaab baan idiin sameynaya dabeeciya ayaa sameeyaa oo maaragtay ta madax xanuuno cashaabteedaas isticmaasho. dhir dabeeciya waxyaalahaasaan dadka siiya. cashaabta waa dhir dabeeciga waxyaalaha laga sameeyo ayaan bixiyaa oo qofkii madax xanuunayo, naagaha dhali waaya, ta dhali weyda, waxyaalahaas waan u sameeyaa oo way dhalaan. ay ku tiri gabdhihii waxay soo ogaadeen inay magaaladoo dhan u tagto oy ku tiraahdo waxyaalahaas ay dumarkao dhan, qofka aan dhalin, qofka meel xanuunayso, cashaab dabeeciyaan sameeya ay ku tiri. laakiin cashaabtan ay tahay sixir oo wax caadi aan ahayn ayay lasoo ogaaday. waa lasoo qabtay. markii lasoo qabtay gurigii wax wasakh laga soo saaray, waa la yaabay. markii lasoo qabtay waxaa la helay jaakeedkii wiilkii oo 23 guntimood, waxay ku xidhay 23 guntimood iyo dad badan oo kale ayaa meeshii laga helay. markii la qabtay ayaa waxaa la weydiiyey ilaa goorta ay saaxirad ahayd iyo maaragtay waxaan ku kalifay. markaa waxay sheegtay inay muddo dheer waday waxan oo nin jinniya ay 7 la saaxiib ahayd oo ninka cilaaqa dhex martay iyadiyo ninka jinka ah. markii dambena ninkaasi u adeegi jiray sixirka iyo waxyaalahaas u adeegsan jirtay, u qadaami jiray ayay sheegtay. way muddadaas bilowday, waqtigii ugu horeysaas ku bilowday oo dad badana sixirtay, way qiratay waxyaalo badan. mid alaab waxyaalo badan ba guriga laga soo saaray, dhar badan oo dadka maaragtay dharkooda dadka ay qaadan jirtay, alaabay ka dalban jirtay oo dhihi jirtay sabab caafimaadaan dhar ii keeno qofkii ka caqli badiso. dee waa la ogaaday. markii saas la ogaaday ayaa haddana waxaa soo baxay nin kale oo hadda ka hor ninkan intaanu dacweynin ka hor dacweeyey ayaa soo baxay. mar kale ashkateeyey markuu ogaaday in naagtii la qabtay. waxaa la dhihi jiray naagtaa foosey ayaa la dhihi jiray. markii uu ninkii haddana mar labaad ashkateeyey ayuu hadda ka hor waan idin soo ashkatooday, waan naagtaas waan ka ashkatooday inay naagteeda sixirtay ayaan idin sheegay, laakiin idinku dacwad iyo dabagal toona kumayna sameynin oo mayna soo qabanin. iminkana dacwad baan ka ahay. waayo wuxuu yidhi ani waxaan guursaday gabadhaan guriga ka bixin, gabadh yani qof muxtaram oo edab leh oo ayaan ka baxay. laakiin maalintii gabadhaas la kulantay ee tiri naag baa halkaa joogto oo cashaab iyo waxaas iibisa oo dabeeciya oo waxyaalo dabeeciya hadduu madaxu ku xanuunay haddii gabadhoo dhalin waxyaalahaas iibisa ay u tiri ay u tagtay. gabadhaydii maalintii hadday soo noqotay guriga ku soo noqotay waxay soo laabatay tiyo qof kale ah oo qof aan garanaynba ah.
oo markastana waxay rabtaa inay baxdo banaanka saas u wareegto, hadday wax rabtay haddana rabin suuqyada saas u wareegto maalin kasta sii socoto. markaan ku idhaahdo ama familigeyga ama aniguna idhaahdo maxaad banaanka ka doonaysaa, maalin kasta lasii socotaa, ama waxay ku dhahaysaa suuqa igee, waxaale waxay rabto ma jirto, way soconaysaa banaankaasuma u ordaysaa. waxay dhahaysaa haddii aad igeen weydo adiga oo hurda, ama ad aniga xorriyaddeeda idin weydo inaan suuqa tago, adiga hurdaan midi ku gelin doonaa, aan ku dili doonaa ay ku tiraahdaa. marka isna ninkii wuu baqday, wuu ka shakiyey, wuxuu i wallahi naagtan maaragtay waxbay usoo qabatay, oo wuxuu i gabadheedu maaha marnaba qof dabeeciya, maahan waxbaa loo qabtay. marka halkaas 2 qof baa lagu hayaan, dad badan oo kalena waa la helay alaabtoodii, iyaduna way sheegtay inay sixirtay. waxa lagu xukumay iyada dilba markaas lagu xukumay. markii dilka lagu xukumay Foosey, waxa soo baxay walaalkeed ayaa soo baxay. walaalkeed wuxuu ku yidhi wixii aad maaragtay qiratay oo dhan waa inaad dafirto oo tiraahdo waxaan maan samayn, anigu waa la igu qasbay. markaa walaalkeed wuxuu yidhi waxna ma qorto walaashay, waxna ma akhrido, waxaan warqadahan iyo waxyaalahan wax ku wada qoran yihiin iyo waxaan maaragtay wax lagu masabidayo wax iyada maaragtay. markii qiratayna qasab baa ay u qiratay, oo sababta waa la dilay, waa la garaacay. markii maxkamadda la geeyey waxaasay yidhaahdeen, oo muxuu yidhi dambiga iska diid maadaama dil lagu xukumayo. markii saas dhacday ayaa waxaa dacwadii baa dheeraatay, iyadana way dafirtay, waxay tiri anigu waa la qasbay, waa la idilay. markaa qasabka maadaama la idilay oo la qasbay ayaa oo qasab hadalkan la igaga dhigay, ayaa waxa igu kaliftay inaan qirto waxaana samaynin, aan waxna ma akhriyo, waxna ma qoro. marka waxaan noolaa Malik Cabdalla, waxay qorteen warqad bay qorteen, markasta way dacwoon jireen, maxaamiyay qabsadeen. sheekadooda adduunkao dhan bay gaadhay, saxaafada caalamka ka hadlay oo yidhi sixirku oo wax iska caadiya, oo qofka maaragtay isaga qofka meerkiisa kuma sameynayo, qofkan waxbaa wata, waa ruuxana waxyaalahaasay dhaheen. sidee baa loo dilaa qof ruuxaaniya waxaasi wataan, waxani wax ruuxaaniya. adduunkao dhan baa ka hadlay in maaragtay aan loo dilin maadaama saaxiro tahay. waxaa soo baxday muddo kadib waqtigaas iyada la qabanay waxay 2003. waxaa soo baxday 2005 waxaa soo baxday naag la yidhaahdo Aamina oo jinsiyadeedu tahay Masar, laakiin ninkeeda maadaama Sacuudi yahay jinsiyad Sacuudi ku qaadatay ayaa soo baxday oo tan baka daran. taasi maxay samaysaa haddaba? laakiin tan iyada waxaa lagu xukumay dil baa lagu xukumay, waxaanay dacwadna way ku jiraan, dil baa laakiin lagu xukumay, laakiin xog bay u dacwoodaan. tan maxay samaysaa Amina? waxay samaysaa dadka magaaladaas maaragtay goreya degan oo dhan waxay dalbataa inay meydka u dhaqdo oo u yimaadaan, oo meydka liwajila ilaahay darta ugu dhaqdo oy ajar ka raadinayso. naagtii markii waxay muddo wado oy meydkii dhaqdo, oy meydkii mudmadii u dhaqdo, maalin baa waxa ay la kulantay gabadh ayaa ay ku tiri bax. gabadhii markay ku tiri meydka markay maaragtay ay meydhayso dadka banaanka u saarta, waxay ku tiri iga baxa. markan ay meydka ay ku tiraahdo iga baxa, dadku iskaga baxaan. laakiin waxay la kulantay gabadh maalinta ka bixi weyday. gabadhii ayaa tiri sabab, markaasay tiri waxyaala khusuusiyadii waxyaalahaasaa jira oo meydka maaragtay inaydan arkin, ama inayna wax ka soo baxeen, ama maydin rabeen, idinku iska baxa. marka gabadhii habarteed iyo gabadhii waxay yidhaahdeen waynu baxayna, way ka diideen, laakiin waxay tiri laasin waa inaad baxdaan. markii hadalkii la isku jiijitay yidhaahdeen waa hooyadii oo dhimatay, maxaa khusuusiyadka jira muxuu yahay, laasin waa inaynu joogno.
ay markii dambe way baxday gabadhii. markay baxday gabadhii hooyada dhimatay ta kalena waxay gabadha walaashi dhimatay ayaa baxday. marka meel yaro albaabka ay kasoo egtay waxay aragtay naagtii warqado jeebkeeda kasoo saartay, oo markii warqadihii jeebkeeda kasoo saartay meydkii kusii dhex wado warqadihii oo meydkii dhex gelinaysa. markay aragtay ayay markii dambe way u yimaadeen qolkiiba meydka lagu meydhayay bay soo galeen. markay soo galeen meeshii meydka lagu meydhayay ayaa waxay gabadhii raadisay warqadihii ay meydka sii dhex gelinaysay halkii ku jiraan. meel kasta way baadhay, maradiiba qof meydkiiba kolba dhinac ka eegtaa, kolba way weyday. iyadana naagtana waxay leedahay dhaqsada meydka ila rogo i caawiyo ay leedahay. gabadhii way eegtay way weyday. markay warqadihii weyday ee gabadhi sida u shakisan tahay ayaa waxay u sheegtay ninkeeda markay u sheegtay ay ku tiri wallaahi waxaan arkay. naagtii bay tiri meydka hooyaday dhaqaday waan ka shakiyey oo waxaan arkay tiyo meydka warqada dhex gelinaysa. warqadihiina markaan arkay inay meydka kusii dhex wado, markii dambena gudihii kalena warqadihii raadis yirina waan waayay warqadihii meel ay gelisay ma garanayo. meydkiina waan rogay. marka waxay ku yidhi waxa laga yaabaa waxyaalo maaragtay qofku u baahan yahay oo waxyaalo meydka lagu dhaqay waxyaalahaas inay ahaayeen. waxay tiri mustaxiil inay ahaayeen waxyaalaha, ma dhici karto. waxay ahaayeen bay tiri warqado jeebkeeda kasoo bixisay, warqado wax ku qoran yihiin ayay ahaayeen. naagtan waan ka shakiyay anigu. marka wuxuu u tegay wiil ay saaxiib ahaayeen oo meesha ka shaqaynayay askartii waxaas. marka wiilkii u tegay ayuu sheekada u sheegay, wiil naagtaasaa jirta dadka meydka bilaash ugu dhaqda. markaasuu ku yidhi naagtu maxay tahay, lacag may qaadataa? markaasuu yidhi lacag ma qaadato, meydkana qofka bilaash bay ugu dhaqaysaa. maxay ka shaqaysaa? waxba kama shaqayso, laakiin waxay samaysaa maaragtay dumarka dhali waaya waxay siisaa dhir dabeeciya. qofka madaxa xanuunayo dhir bay u samaysaa isagana. waxyaalahaasay maaragtay dumarka ka caawisaa oo magaaladoo dhan way u tagtaa. markii ninkii askariga ahaa ku yiri oo maadaama shaqo kala haynin maxay hataa maaragtay bakshiish haddii la siiyay yani looma hadceliyo kale. markii meydka u dhaqo ma qaadato, waxa ma qaadato buu yidhi. waxaana waa shaqo inay qaadato lacag ka qaadatay ahayd, maxaa sababi buu yidhi. wallaahi waa saas buu yidhi, naagta saasay shaqana ma hayso, dadkana waxaasay u samsamaysaa dumarkao dhan, magaaladoo dhan baa u tagta, magaaladoo dhanna meydka u dhaqda. markaas wuxuu ku yidhi ninkii meeshay degan tahay iyo ii sheegeen magaceeda. halkii waa maaragtay naagta waxa lagu sameeyey dabagal, waa laga shakiyey. markii dad baa loo diray dabagal baa lagu sameeyey. midda markii la daba socday waxaa la ogaaday naagtani inay sidii tii hore kale tahay, laakiin tii hore ka khatarsan tahay. midda labaad magaaladaasa xirinta ku badan, waayo waa magaalada gooniheega waa xuduud, maadaama guryo kala fogfog yihiin oo meel ciida taho guryo kala fogfog yihiin. waxay doonaan bay samayn karaan, laakiin guri markuu ku naban yahay raaxadooda ma qaadanayaan. naagtii markii dabagal lagu sameeyey dad baa iyadana loo diray, waa lasoo ogaaday naagta inay saaxiro tahay, waa lasoo qabtay. markii lasoo qabtay way qiratay. waxay tiri waxa lagu yidhi sixirkan iyo waxyaalahan xageedkiisa. waxay ku tiri meydka bay tiri markaan dhaqayo ayaan ku aasaa, qofka ayaan dhexgeliyaa bay tiri, meydka gudihiisa jirkiisa ayaan dhexgeliyaa. ma u baahanay in laydin sii fasiro, waad garan kartaan si meydka qofka jirkiisa u dhexgelinaysaa. waxay tiri qofka waxaan ku yidhaa iga yara bax. markaan idhaahdo dadka meydka maaragtay ama qofka hooyadii dhimatay ama habartii ama walaashii waxaan ku idhaahdaa iga bax haday dad meesha joogaan, banaanka u yara baxa. markay banaanka iga yara baxaan aniguna meydka ayaan warqadaha dhexgeliyaa. shaqadeeda markaan qabsadana waxaan sameeyaa inaan maaragtay u yeero.
waxaa lagu yidhi wax lasoo gabadhii maaragtay ayaa loo markii dacweysay, gabadhii markii dacweysay tiri waan ka shakiyey ninkeedu maaragtay soo ishkatayn doono. hooyadeed ayaa laga soo saaray qabrigii. markii laga soo saaray qabrigii ayaaba waxaa loo diray dhakhtarka meydkiisi loo baaro. waxaa laga helay x-rayga markii la mariyay gabadhii la baaray meydkeed ayaa alla yarxam waxaa laga helay warqadihii ku dhexgalay inay warqada ku dhex jiraan oo warqada dhexgelisay. naagtii markii la ogaaday inay waxyaalahaas khatarta ay ka shaqeyso waxaa lagu xukumay dil, in maaragtay la dilo ayaa lagu xukumay. waxaa la dilay iyada waa la dilay waxaa la dilay 2011 ayaa la dilay. tii kalena tiyo dil ku xukuman ayaa waxay dacwoodaanba kuwii kalena waxaa lagu xukumay iyadana dil. markii u dambeysay lagu fulay maalintii ayaamihii la dili doono wax yar ka hor ayaa tiyo wax cunaysa ayaa wax ku istaageen, way dhimatay. ma garanaysa wax ugu istaageen, laakiin uu tala gashay mise si kale u dhacday ma ogi, laakiin sababtaasay u dhimatay oo tii kalena saasay ku dhimatay. tanna dil baa lagu fuliyey oo waa la dilay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi